ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacada ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirada oo dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigaya markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa تعسي الله ونحرسه كون ويقلن جبين مرك إلى أنت وضعنا مرك ويقلن جبين ويوضعنا تعسي مرك اللي يسوى رسول واحد حقيقي ما ذانا ما اللي يسوي دينا ما لها ور إنتان حل أرهادنا عد يسوي ديني سماله باش عالم كحلي هذا مشكلة ويفيرنايان ماشي أقول مركي مريس أي دبك يسكر عنايان كنا ويتجايان هاي كان ويلا الشرايان كنا ويلا الشرايان واسدي وحين قدقن هنا وحال هوان انتو قبيب وحسو خلافين تلو يوجع عليها إسلامه مركز سعودي وني خطر وحوري انت تسيجي ستان مدي عند بركة كتاب تعيان جعله مركز يسيجي ستان مركز سوق انت هذي بدأ بركة كتابت مدول بس يسيد يسيب أنو يجي عليها marka dhabar kistaabashan inta iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagu badaba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibunahum jecel wala yuhibunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ah kuwa soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ma yaga rabi wuxuu ku soo baxay leey jidkii la mari jiray loo maray bas tag suula kursi soo ku fadhiyay la arkay ma dhahayaa ninkan madow waaye cadaan ma aha aan la gadina ma jirto hal hadii la gadiyo oo si isku ogaa laga leexdo hadhow meel laga soo qabtay lama helaayo waqtigiisa dhameystay ka leexda waqtigiisu dhameystay doorashooyin kala laga baarlamaan congress si loo waday Ilhaan Umar soo baxday oo Soomaali ah Mareykanka odagii waa kan Ilhaan Umar waxa ay saysa Trump marka gabadheen haday Trump la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo Trump ayaa facsiman oo way la dagaalaysaa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kala celiyo mal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wada kulligeen marka Allah wada naxariistaana marka xal ayay naga rabtaaye xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la inoo maleegayo ee la inagu sameynaayo ee danteena aynu ku jirin ee gaado ay sameynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayna seen lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo warseen ka yeelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khayr Allah siiyo bariga waxa jiraan bariga oo jaadka la joojin jiray bariga jaadka inta la joojiyo qofka lagu arko dabargoynta qaadka dhig jiray waa la mamnuucay guriga la wareegay liiro waa ogsoontiin dadka waa soo yaqaana jaadka soo ma joojin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayiraan jaadka waa la joojiyaad guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsooraa waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaw ma joogo kuwii askartu weydii wuxuu dadkii kale aaway ana gudoomiyay waan soo kaadinayna intay dhahan ayay baxsadeen masaasaha afmaameentu kula hadlay sheekana qaadno Allah naxariisto dhintay intii maxaabiista kale ay meesha fadhiday ay aan la sii deeynin ya warantu qoxay isiin baha kaadiya idinka baa soo kaadinay hadii la soo kaadin iska baxsanaayo maxay idin meesha ku haysan kaadid ma ismeeyay ordu idinka soo kaadin يعني دينتي إسلامك أهيد وحي إلهي وحارانتنمي أو لو جيدو حدوه سمركا أساقا دان أساقا مركاس أمو قطو أدوية ونا أجيدين
وحولاه إنه وضع هوش ور إلهي ما أقول لك جوب ماذا وحالي وحول أفرنا وتكبدنا نقول سنة تذكر وين لما هذا دقال الله لما هذا يسان أنت أسوق جذو وأين لبعتن يصدق يمالها جورسدو وحالي كتابك إلهي ما أقول أفر كبدن مركز سوري قال له كتاب إلهي دنتي موجه كتاب إلهي دنتي كوجه دنتي أنا أقانا من كتاب دنت يعني مرجع أنتوا أي نقطة دنتي إذا أنا بأقانا تاسي وحصح معها دنت إلهي بيقان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي وحي أن سمين جري عرفان سو استاغي أدنا وادي أوقتها أنا وانس أوقاهي وحي حماي أن سمينا هل كان عن كوكا توبت كاني أون لقي إلهي ومرخاتك أهو وحي دادكو أيقول هايين وانو علينا يا يعفينا وان دهايا نبدأ من أوقيسان مايو كعباد هذا أكتاد أنا بلان كوك قلي مسام صوت هايا ما يدار على أنتو كوك أشتهالك وكو جوغو وحولاه يدور فيسبوك السعوداب مركب حلقيش الشيء عايزين صور نقضوا ايبه حقوا بك صور دارنا يا وما نقول صور نقض نقربته سو هذيك توبت كان ما هي يعني كسو قبيسي ما دنبيga waxay un ka dhigeen soo hadda midna ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalmaha xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meesha muu ku dhufay bowski uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajki muxuu taray al hajj al mabrur ma haka ko muqaayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyay wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiikarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaasoo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baa wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis marka waxaan ka wada keen mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya هذا كورة قصة وحال نينا ماله شيخ كأها مركز شيخاني وان رجاد ما هنا علمي جميع قانون تدخل سكواب صلاة مركز لكن ماذا أو ما هذا مالك تمام مرتي أو شيخ ولكن وحي قانا وحدتك كوا عدنا أولاهي قال تعالى إلى يحور فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا تكذا ما طاب لكم من النساء مثنى لبلبة تكذا أو حلقوا صلاة الصبح يو الرباعة يو الثلاثة والثلاثة ورباعة ثلاثة ومغربك والرباعة أنا وأنت كلا ما كفنك كذا شيخ ويابي وحوري أنتوا الله هذا هذا إلهي بنكون دار شيء ما فنك حبة كذا وحوري وما حيت هدينا هي فنك حبة كذا محله فسري كرا مركز سوية هو قرت مركز ماشي إلا سوق عليه بس إنه ماشي عشتنا ورها بعضيه وفنك حبة كذا لا يسيء وحوري دتك أنتوا الله هذا حوري جيست ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkana kala saaraysiin dad dadweynatiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda baan waan ka helo oo uu yiraahdo hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah aniga ay gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la isugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haddii ugu haysay fanka tukada aaway waa anigu ana ku haysay fanka tukada ma markaasuu yiri su'aalan ku weydiinaya markaasuu yiri weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwallahu ahad markaasuu yiri ha allahu samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ha maxay tahay arbaax u dhax ku dhuftay wal isku booday marka ninka saddex mar ha ma kaga sii horta ha muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahay marka culimada kala qabta هذا كسماي وحكى سعد وهواي علماء كلا قبت إنه ينوت على مركز علماء كلا قبان لاين ريب هدية موجتاي سمع قالوا كلام ما كلا لها قلل أو أي كلا سيح هذا والد كيو حرورته يا ماله أقل صومالي قال ولا سيحلان كوكو كوسنا مركز أقل صومالي نعكس سيحلا
reebaadusay wax ku dhalan ayaga yaqaan marka saas ay tahay waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid kamid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin uu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaanbay la galay ilmi istaanbay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladdu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha hadday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa indha farahay gelin indha farahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indha farahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso